وروان السلام صاحبي يا أرين يربع ربعنا نلو ذاك شلوا واحد سوري شلوا واحد عضي نين لايف كسوق قبر نعيم برينك لله كوبيي عرفتون كهذا الشيء مركا بريغور نعيم برينك فوق اللي تشري مركا وحسمي برنامج نعيم برينك قبطوه كان عمل إنه بسكوده إنه قبطوه لكن شبكة ما قبان كرو برنامج كان تاسو قبطوه وين نعيم برينك وقبر واحد بدنا فانسن برنامج كشكانسيغا خبرد وله qaabkay u maamusho u handle gareyso qaab aad top iyo top ah oo aad qurux badan gabadhaas ku biyay marka wiil buu soo qabtay yar baan daawanayay gurigan joogay inan buu soo qabtay inanka marka nin dheer oo quruxsan buu ahaa oo timo adag saastu u soo qabtay buu wuxuu la galay inanka ay afka inuu goosto oo ninka barnaamijka hogaaminayay waa sidii wuxuu u dhaqmaday wixii meeg la isku qaadan jiray meeg oo ayda ahaa ما جرير باطاي ده جرير بانا هاي دي عملوا كلاريا نوعاسه نينكي حرنا هبل شيغو با لا تيميا خوكو بلاو نينكي بو عناي رفاي ويلك مكاسو ويلك لا سو قبتنا نينك لا سو قبتنا نين runtii dulqaad badan oo khiyaar ah oo fariida buu ah aad ba markaa ula yaabay aniga markaa codsaday kasan ku dhawr inaan kana la hadlaya waxa rabinaa yara dhex galo oo dhawr maxaad kasan ugu galisaa markaas aniga kumantiga waxa lagu soo qoray waa gabadhii gaashaheed waa kaadin waa tii gaashaheed kasi ugu yiri magaal baata kumantiga waxa lagu soo qoray inaad gaala tahay inaad orgaalmi gabar muslimad baan ahay ma yees sheeris cadde maxay sacadeed oo ku jawaabo gabar muslimad aan ahay aniga horta mid baa haysata saaxiib yeelan la wadaagay ajiib waxa anigu hada muddo baan waxaan ka shakiyay diinta marka diimaha inaan baartid ama inaan ka shakiso wax ceeba ma aha wax baan marka qoraal baan ka sameyn jiray marka waxaa jira kuwa laba group baa dhib igu haysa waan u sheegay waxaan ku yiri war anigu shaki uu iga baxay qof muuminadaan ahay ilaahay taqaana wakaasa halkaasaan uga gudba arrintii wax problem dadka kuma hayo ayuu laakiin dadku qaar baa problem igu haya problemka igu haya waxa weeye بربلايك dadku igu hayaan waxa weeye group aan ilaahay aqoon oo marka horeba mutukadayaal ahaa oo dadka dhibaateeya oo islaamnimada raba inay ka firxadaan oo qofka dhaha muslim ma ihi maalin ilaalsada oo ku nafisi jiray group igu nafisi jiray oo hadal ay dhihi kareen aan u iri oo halkaan fadhiyo si u firxadaan la oo magacooda aan wadan wajigooda aan wadan waligood ilaahay u sujuudan kufsadayaala sinaystayaala tuuga dad nacalad ah baa kumantiga soo gala meeshaan tagaba nacala abood ku yaal waa tii gaalada ahayd wargaal markaan ahaan halkaan baa soo fadhiyo waan ku faanay waxaan dhahay anigu diinta waan ka shakiyay ana Soomaalida la yaqaano geesinimadaas aan leeyahay nacala idin dhalay hadda markaan tukadana waan tukadaayo caadi baan oo shaki weega baxay baan dhaha qof labadaasba awooda la baan ah laakiin ninkan dadka ugu foosho xun oo afka malaasan ee ilaahay abuuray qalqiga ugu foolxun ku jira ee haddana iska dhiga dhexdhexaadka ee dadka abuse qofkaas oo kala muslim sheeganaya waa nin kaniisadu ay soo caawiso Talyaani jooga fiiriya oo soo kaniisada British waa nin dad Kristina soo dhaweeyeen magaal baatan si loo hadlaytay ma yaqaano wararta tuug baa tahay barnaamijka gabarba hogaamiso wadee gabadha u daa ilaahay ku soo qabay haddaad gabadha u daynayn oo aad rabtid inaad koobiga aad wadid waxaad barnaamijka meesha u soo faray dadka kala hadal dadku waxay maxaa ka galay kaliga haddaad tukatid min laga aqbali waayaa ka baqaysaa haddaad kaliga tukatid xaq rabbi u jeesatid min laga aqbali waayaad ka baqaysaa maxaa ka galay dadka haddii tukadaan iyo haddii tukad maxaa ka galay miilaa xisaabinaya baa tahay qofku wuxuu yahay isu egay maxaa mid kale inankan ku yimid dadkan ku yimid si u egyihiin timooda haddii aad egyihiin iyo haddii timooda jilicsan yihiin soo ilaahay ma abuurin sida uma abuurin maxaad u faquuqaysaa oo u soocaysaa oo u kontroolaysaa
oo u leedahay hebel baa la dhalatay duu hebel la dhashay hebel kala la dhalatay fool xumoy hebel kala la dhalatay ma qof ka fool xum baa meeshan soo fariisto shaashada haddii qalbigaaga la dilaaciyana sida qurunkiiba u soo uraya oo qofka saa u dhaqmanayaa taa afkiisa waxaa ka baxayaan muuqaalkaaguna waa qofka sidaa u eed baa tahay wala kugu dhacday dadkan kaloo waa shay war haddaad rabtaan inaad diinta ka baxdaan oo gaalowdaan gaalooba soo arka kitaabada kala baara hinduusu noqda kirista noqda balaayo kasta noqda haddaad rabtaan inaad gaalowdaan laakiin aniga cidiyaha ay soo qabsan ha ka nixin inaad cibaadaysanayo oon ilaahay eebaweyne u tukada ha ka nixin ها انت ماسك soo xiratay shoogiye kula noqonin inaan gabar muslimada ahay ilaahay ka baqay halkan soo fadhiyo xaad ii xaganaysaa qof waxay tahay qariso gudaheeda ma noqon karo anigu waxaan ahay baan ku faanaa oo meel la soo fariistaa ha masalaad la'aantaada iyo tuugnimadaada iyo caydaada baa intay kaa badatay baa waxaad rabtaa nacaybka dadka kale inaad gaarsiisid oo aniga aganaha ay soo surato halkaa kumid ka bixisid idaa hadday jiraan dad muslimiin ah oo raba sidii loo aqoonsado ayagana la dhaho wadaadaad tihiin oo raba inay aniga dhibaateeyaan oo markaan dadka u galo la sheekaysanayo ay aganaha ay soo surtaan oo waxaan ay igu dhajiyaan walaalayaal idaaya haddiina ideynin waan in la dagaalami doonaa si adag baan iskaga kin celinayaa waxaan idiin samaysan doonaa group xajir ah group badan baa Soomaaliya ka jira qof waxaan ahay cod leh hadasha aragti leh dabagal baan ku samayn doonaa guryihiina dhexdooda dad kuwa dhasheen baan wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaan ka dhigayaa kuwa adinkeena nacab fakarkiina iska daaya gabar baan ahay ina Soomaaliyeed baan ahay halkaasaan joogaa inna ma dhibay iga daaya dhibkiina qofka lama dhibo oo lama dabagalay iska daaya intaas baan codsanayaa haddii kale waa inoo dagaal nabadu dan adigana ay kugu jirtaa annaga igu jirtaa iska daa intaas baan maanta hadalkay kusoo gabagabeynaya waxaa jira dad kaloo adoomo oo markii qofka Soomaaliga uu ka hadla carabtoona fuquuqayso oo qofka madowgiisa nacab ayuu qofku wuxuu ku leeyahay gaal baa tahay dad carabta ka hadasho haddaad carabta caabudid markuu nabigu dhintay ayuu Umar wuxuu yiri haddaad nabi maxamed caabudi jirtid wuu dhintay orod haddaa ilaahay caabudi jirtana ilaahay wuu nool yahay wadadka carabta caabudo diinta carabta ma haysana anagu islaam Soomaalidu waa dad muslimiina laakiin dad carab caabudo ma aha Soomaali baan ku hadalnaa kushitig baan nahay dad madow baan nahay geeska Afrikaan deganaa carabta dad yoga kale noola siman tahay nacaybkay noo hayso qofkina nabcaado Soomaali waa qofka carab oo noo nabcaada midabkeena waa nabcaanaynaa waxaan tusinaynaa waxaan nahay waa lala hadlayaa haddaad carabta caabudid dee carabta naclaa ku dhalaya ftada u dhiiba ku wasaane orod u taga carabta carab caabud manihin annaga orod u tag orod u sujuud ilaah ka dhigo ha nagu qasbin laakiin dadka kale ha ku qasbin dadka kale waa dad Soomaaliyeed weeye madownimada iyo midabka maariinka baan ku faanaa sankeena weyn iyo timaheena adag baan qurux u naqaanaa qaaradaas baan deganahay marka nadaa carabta siyaasad ahaan Soomaalida hadday isku hayaan iyo hadday jinsi nacayb ay waxaas oo dhan waa laga hadlay dadka hadlayaa jira soo laba arrin bay kala yihiin maxaad markii laga hadla carabta ma dhahdaan islaam baa la ceebeynayaa islaamku waa imisa Suudaan baa muslimiin ah oo Yurubiyan kala muslimiin ah maxaad haddaadan carabta adoon u ahayn oo qof dabada laga mara aan carab u ahayn maxaa ku gubaa duf ku baxay maxaa u gubataa maxaa diintii carabta iskaga kaa dhex daray walaayo idin ku dhacday dad ma aha kuwaas waa doqomo ilaahay ifka keenay